kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walbood adduunka ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub. Muuqaalkeenna waxaynu ku soo qaadanaynaa warar goosgoos ah oo ku saabsan dhanka ciyaaraha gaar ahaan kubadda cagta. Waxyaabaha aynu eegi doonana waxaa ka mid ah Karim Benzema oo caawa jebin kara rikoorkii Raul Gonzalez ee kooxda Real Madrid, Lionel Messi oo dib ugu soo laabtay tababarka kooxda kubadda cagta PSG, Christopher Nkunku oo rikoor cusub ka dhigay horyaalka Bundesliga Jarmalka, Ajax oo magacaabatay macalinkeeda cusub ee bedelaya Erik ten Hag oo ku sii jeeda Manchester United, iyo Cristiano Ronaldo oo ku guuleystay xidigii bisha Abriil ugu fiicnaa horyaalka Premier League Ingiriiska si la mid ah macalinkii bisha Abriil ugu wanaagsanaa horyaalka Premier League oo la magacaabay. Sheekooyinkaas ayaan eegi doonaa daqiiqadaha soo aadan, balse intaanan sii gudagelin muuqaalkeena waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe inoo saartaan barteena YouTube-ka. Saaxiibada hore noola joogana waxaan ka codsanaynaa inay like iyo share isugu daraan muuqaalkan. Mahadsanidin. Aynu ku bilownay kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa caawa markaasi ciyaareysa kulan qayb ka ah horyaalka La Liga Spain, waxaana la filayaa in Karim Benzema uu markaasi safka hore ku soo bilowdo ciyaarta caawa Los Blancos ay la leedahay Levante. Weeraryahanka Faransiiska ah ee Benzema ayaa caawa waxa uu jebin karaa rikoorkii Raul Gonzalez ee kooxda Real Madrid. Karim Benzema ayaa caawa heli doona fursad uu ku jebiyo rikoorka gool dhalinta halyeygii Real Madrid ee Raul Gonzalez, kaasoo haddii uu sameeyo uu laacibka reer Faranse ku noqon doono ciyaaryahanka labaad ee ugu goolasha badan taariikhda kooxda Real Madrid. Carlo Ancelotti ayaa keed ka dhigay Benzema kulankii Atletico de Madrid ee Axaddii, waxaase uu ballan qaaday inuu ciyaarsiin doono caawa kulanka ay Los Blancos garoonkeeda Santiago Bernabeu ku soo dhoweyn doonto naadiga Levante. Karim Benzema ayaa u baahan inuu shabaqa taabsiiyo ugu yaraan hal gool si uu u barbareeyo rikoorkii gool dhalinta Raul ee kooxda Real Madrid. Haddii uu gool labaad raaciyana waxa uu jebin doonaa rikoorkaas isagoo markaasi baal dahab ah isaga qori doona taariikhda kooxda cadcadka ee boqortooyada Spain. Cristiano Ronaldo ayaa ah ciyaaryahanka ugu goolasha badan taariikhda kooxda Real Madrid, waxaana uu u dhaliyey 451 gool dhammaan tartamada kala duwan, halka Raul Gonzalez uu yahay ciyaaryahanka labaad ee ugu goolasha badan kooxda Los Blancos, waxaana uu dhaliyey 323 gool. Waxaana keliya hal gool uu markaasi ka sarreeyaa Karim Benzema oo isaguna kooxda cadcadka u dhaliyey 322 gool. Dhinaca kale, kulanka caawa ayaa noqon doona markii 20aad ee Karim Benzema uu ka hortago naadiga Levante, waxaana uu 19 kulan ee hore uu ka dhaliyey kooxdaasi Levante 9 gool, waxaana kooxdani ay ka mid tahay kooxaha uu shabaqooda saaxiibka la yahay Sheikh Karim Benzema. Xil ciyaareedkan Karim Benzema waxa uu dhaliyey 43 gool tartamada kala duwan, 26 ka mid ahina waxay ahaayeen horyaalka La Liga oo kaliya 29 kulan uu markaasi ku dhaliyey goolashaas, waana xil ciyaareedkiisii ugu fiicnaa ee taariikhda soo maray, isla markaana uu goolashii ugu badnaa dhaliyey. Caawana mar kale ayaa la filayaa inuu shabaqa gaaro isagoo indhaha ku haya rikoorka gool dhalineed ee Raul Gonzalez ee kooxda Real Madrid. Dhinaca kalena ninka la yiraahdo Christopher Nkunku ayaa markaasi rikoor cusub ka dhigay horyaalka Bundesliga Jarmalka, waxaana xidigan gool dhalinta ku caanka ah xil ciyaareedkan uu markaasi noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee markaasi 4 jeer ku guuleystay ciyaaryahanka ugu fiican bisha horyaalka Bundesliga hal xil ciyaareed. Nkunku waa mid ka mid ah xidigaha ugu halista badan ee haatan ka xamaalanaya horyaalka Jarmalka ee Bundesliga, waxaana uu dhaliyey 20 gool isagoo markaasi 14 gool oo kalena ka caawiyey saaxiibadiis fasal ciyaareedkan 2021-2022. Nkunku hadda waa ciyaaryahankii ugu horeeyay ee 4 jeer ku guuleysta abaalmarinta ciyaaryahanka bisha ee horyaalka Bundesliga 4 jeer hal xil ciyaareed. Xidiga reer Brazil ee Marcelo isaguna waxa uu u dabaaldegayaa dhalashadiisa maanta oo ay ku beegan tahay isagoo jirsaday 34 sano. 2007 ayuu markaa kulankiisii ugu horeeyay u saftay kooxda cadcadka ee Real Madrid. 15 sano kadib waxa uu noqday ciyaaryahanka koobabka ugu badan la qaaday kooxda Real Madrid isagoo kula guuleystay 24 koob. Kabtankii hore ee kooxda kubadda cagta Barcelona Lionel Messi oo haatan ka tirsan kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee ka dhisan caasimadda waddanka Faransiiska ayaa dib ugu soo laabtay tababarka kooxdiisa maanta. Kabtanka reer Argentine ee Lionel Messi ayaa ku soo laabtay tababarka kooxdiisa PSG, waxaana sawirro iyo muuqaalo laga soo qaaday markaasi lagu baahiyey wargeysyada ciyaaraha ka faalooda isagoo markaasi qaadanaya tababarka kooxda kubadda cagta PSG ee ka dhisan Faransiiska. Messi ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay dhaawac yar la maqnaa iyo xanuuno, balse hadda waxa uu diyaar u yahay in uu kooxdiisa markaa kala soo muuqdo kulamada soo aadan isagoo dib ugu soo laabtay tababarka kooxda PSG.
dhinaca kalena kooxda kubadda cagta Ajax ayaa magacaabatay macalinkeeda cusub kaasoo bedel u noqon doona Erik ten Hag oo ku sii jeeda Manchester United. Macalinkii muddada soo hayay kooxda Ajax Amsterdam ee wadanka Holland, Erik ten Hag ayaa markaasi u dhaqaaqaya garoonka Old Trafford ee looga aramiyo kooxda Manchester United. taa bedelkeedana kooxda kubadda cagta Ajax waxay markaa magacaabatay macalinkeeda cusub ee markaa noqonaya bedelka Erik ten Hag. Ajax ayaa macalinkeeda cusub u magacaabatay Alfred Schlender oo markaa noqonaya bedelka macalinka xiran ee Erik ten Hag oo markaa heshiis horeba la gaaray kooxda Manchester United ahna macalinka markaa qaban doona xilli ciyaareedka soo socda kooxda ay dhibaatooyinku hareeyeen ee Manchester United. Ten Hag ayaa markaasi ku sagootiyey kooxdiisa Ajax sidii ugu macquulsanayd uguna suuragalsanayd maadaama uu u gacan geliyey koobka horyaalka wadanka Holland ee Eredivisie. Ajax Amsterdam ayaa markeedii saddexaad oo xiriir ah ku guuleysatay horyaalka wadanka Holland. dhinaca kalena Cristiano Ronaldo ayaa ku guuleystay abaalmarinta xidiga ugu fiicnaa bishii Abriil horyaalka Premier League isagoo ku garaacay dhowr ciyaaryahan oo kale oo kula tartamaya abaalmarintan. waa markii lixaad ee Ronaldo uu ku guuleysto abaalmarinta bisha ee horyaalka Premier League kadib markii uu dhaliyay 5 gool 4 kulan bishii la soo dhaafay horyaalka kulamadii uu ciyaaray naadiga Red Devils. kabtanka Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa markaasi kaalinta koowaad kaga soo baxay xidigihii la tartamayay waxaana uu abaalmarintan ku garaacay xidigaha kale ah Nathan Collins, Kevin De Bruyne, Bruno Gomes, Gabriel Jesus, Son Heung-min, Thiago Alcantara iyo sidoo kale Leonardo Trossard. waxaana hadda loo gacan geliyay abaalmarinta xidigii ugu fiicnaa horyaalka Premier League bishii la soo dhaafay Abriil. haddaba kaalintii ayuu ka soo galay Ronaldo abaalmarinta xidiga bisha ee horyaalka Premier League. haddii aan eegno kuwa ugu badan ee hantay abaalmarinta bisha ee horyaalka Premier League, Ronaldo waxa uu ka soo galay markaasi kaalinta labaad isagoo 6 goor ku guuleystay waxaana uu la siman yahay Steven Gerrard oo abaalmarinta xidiga bisha ee Premier League isagoona 6 jeer ku guuleystay. kaliya waxaa ka sareeya labada xidig ee kala ah Sergio Aguero weeraryahankii hore ee kooxda Manchester City iyo dhaliyaha haatan ee kooxda Tottenham Hotspur Harry Kane oo iyagu markaa min 7 jeer ku guuleystay abaalmarinta xidiga bisha ee horyaalka Premier League. Ronaldo ayaana mar kale hadii uu ku guuleysto abaalmarinta xidiga bisha ee Premier League waxa uu la siman doonaa ama barbarayn doonaa Aguero iyo Harry Kane. haddii aynu eegno markan xidigaha ugu badan ee ku guuleystay abaalmarinta bisha ee horyaalka Premier League iyagoo u ciyaarayay Manchester United waxay kala yihiin Cristiano Ronaldo oo 6 goor ku guuleystay isaga ayaa ugu badan waxaana markaasi ku xiga Wayne Rooney kabtankii hore ee Manchester United oo isaguna abaalmarinta bisha isagoo United ka tirsan 5 jeer ku guuleystay. Bruno Fernandes ayaa isagoo xiran maaliyadda United waxa uu hantay 4 jeer si lamid ah Paul Scholes oo abaalmarinta xidiga bisha Premier League ku guuleystay isagoo ka tirsan United tira 4 jeer. marka Bruno iyo Scholes 4 jeer ay qaadeen, Wayne Rooney 5 jeer ku guuleystay isagoo Manchester ka tirsan abaalmarinta xidiga bisha ee Premier League. Ronaldo ayaana ugu badan oo markaasi 6 jeer abaalmarintani hantay. dhinaca kalena macalinka la yiraahdo Mike Jackson ayaa isaguna ku guuleystay abaalmarinta macalinkii ugu fiicnaa bishii Abriil horyaalka Premier League. tababarahan ayaa kulamo cajiib ah markaasi soo qaatay intii lagu guda jiray bishaas. kulamadii kooxda Burnley uu hogaamiyay bishii la soo dhaafay Abriil, macalinka la yiraahdo Jackson ayaa markaasi ahaa 4 kulan dhibco muhiim ahna ka soo hooyay taasoo sahashay in markaa loo gacan geliyo abaalmarinta macalinkii ugu fiicnaa bishii la soo dhaafay horyaalka Premier League. 4 kulan waxaa markaasi Burnley ay la kala ciyaartay West Ham oo gool iyo gool ay galeen, Southampton oo 2-0 ay kaga adkaadeen, Wolves oo gool iyo 0 ay ku direen iyo sidoo kale 2 gool iyo gool oo ay kaga adkaadeen naadiga Watford, taasoo ka dhigan in 12 dhibcood oo suuragal ahaa ama macquul ahaa oo ay kulamadaasi ka qaadan lahaayeen 4 ah marka uu soo hooyay macalin Jackson 10 dhibcood oo kamid ah 10 dhibcood ayuu ka helay 12 kaas dhibcood ee suuragalka ahaa taasoo keentay in loo doorto macalinkii ugu fiicnaa Premier League bishii la soo dhaafay ee Abriil. waad ku mahadsan tahay inaad nala soo gaartay ilaa gabagabada muuqaalkeena. fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad like inoo saarto muuqaalkan siina gudbiso mahadsanid. waxaan ahay Haarun Yuusuf Qasaaro. intaan muuqaal kale dib ugu kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.